السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada wax kasto TV waxa idin la hadlaa anigoo farseef ah kanina waa barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee faham kubadda cagta qaybtiisa labaad waxaan u hadlaynaa qadka dhexe saan wada ogsoonahay koox walba waxa ugu muhiimsan qadka dhexe waa wadnaha uu ku shaqeeyo naadi walba marka waan isla fiirinaynaa qaabka uu u shaqeeyo wadnahaas iyo meelaha dhiiga oo kusoo baxay meelaha kala geeyay banooniga nala soco marka waxaa jirto kubadda cagta way sii horumaraysaa horta boosaskii awal kori jirayna waxbaa ku sii kordhaya waxbaa ka dhimaayo laakiin waxaa jirto markii qadka dhexe laga hadlayo saddex boos aan isma bedelin waxaa laga yaabaa ciyaartooyga in muhiimada qaar loo dhiibo iyo in wax laga reebo marka saddexdaas basic ah iyo kuwo kale oo marmar lagu daro aan ka hadlaynaa midda koowaad oo ka hadlayna waxa waaye seega ammaanka kooxda lahaa ninkaas maskaxaantii marka ka hadlayo ninka ugu muhiimsan kooxda waa markii la difaac ahaan iyo banooniga in cayo weerar kala soo dhiso banooniga gadaal laga soo dhiso seega muhiimadiisu waxa waaye inuu difaaca caawiyo inuu kubadaha burburiyo waxaas waa wada naqaanaa soo maaha okay tusaale hadda ugu fiican marka Casemiro N'Golo Kante dadkaas say ay dheelaan booskaas burburiyaha kooxda isku xirayaan banooniga difaac soo qaadaan dhexda keenayaan ama banooniyaasha weerarka ka hortagayaan ay burburinayaan booska sayga markii laga hadlayo marmar waxaa loo wanaanaysaa inay tiir yihiin tiirka oo difaaca uu ku dhisan yahay macnaha waa jaranjarada lagu soo koraayay difaaca lagu soo gudbaa dhexda iyo hore in banooniga la keeno jaranjarada la soo marayo waa booskan sayga markii laga hadlayo muhiimadiisu koowaad horta waxa waaye inuu kubadaha burburiyo muhiimadiisu koowaad taas waaye midda kale inuu difaacada oo banooniga ka soo qaado oo dhexdiisa ama weerarkiisa uu ku xiro oo kala duwanaan kara dabeecadaha ciyaartoy walba isku mid ma ahan Busquets oo kale hadda Busquets difaaciisa ma fiicno sidee u difaaci jirtay Barcelona markii ama sidee u difaacda hadda marka oo duqowaad sidiis hore xataa ma ahan laakiin wiligiisa difaac ma ku fiicnaan moogta Barcelona alkoor waxay u difaaci jirtay markii banooniga laga dafo saddexdooda dhexda hal mar isla wada raacana ciyaartooy banooniga wada ciriir la saara kaliis murug deyn kar banooniga Busquets kaliis hadii loo helo waa laga adeegana maxaa kale hadda yaa soo horjeeday Casemiro hadda fiiriye Casemiro difaac uu ku fiican yahay kaligiisana waa laga tagi karaa sayga kaliis oo taagnaan karaa labadan dhexe waa weerartami karaa Toni Kroos iyo Modric banooniga ku weerartami karaan ilaga ku og yihiin inuu Casemiro difaac kaliis uu ku fiican yahay oo kaliis hadii loo helo qofka oo banooniga ka qaadi karo marka ciyaartooyda kala duwan N'Golo Kante oo kale sayaasha ugu fiican oo ku jira hadda hele koob adduunkan hadda Sufyan Imrabat fiiriye ninkaas ilaa hadda waa ka yaabanaya qatar waa sanadkan hadda laakiin Griezmann la yaabanaya angoor weerar la manager laakiin as xataa say amal oo dhila laakiin dhex waaye laakiin say ma aan magac kale leeyahay xalaqada dhamaadkeeda ku ogaanayna otaha aan u soo gudubno otaha hoshiisa maxay tahay adigana maxaa ka faa'iidi kartaa muuqaalkan otaha hoshiisa waxay tahay ana waxa ku naanaysaa Cavalieriga maxaa qabtaa meeshii laga dalbado banooniga geeya maaha oo adeega geeya ka wada Toni Kroos naanistiisa dadka dhahan Toni Kroos Cavalieri laakiin badanaa hadii la wada fiiriyo Cavalieri la wada waa banooniga soo qaada difaaca iyo oo soo qaada gadaal u soo degtaa badanaa ma arkino Toni Kroos Xavi Hernandez Barcelona difaaca agtiisa imaana banooniga soo qaado oo weerarka u geeyo Xavi soo deganayo midkaan kalena ma soo degan jireen badanaa Iniesta ama Modric markii Real Madrid laga hadlayo boosaska saas oo kala dheena waxa waaye playmaker laakiin wax xiro gadaal u soo degana sayga agtiisa ama 5 iyo 4 banooniga soo qaada badanaa ciyaartooy gambis badan ma aha kan ka qaad kan u baas banooniga saas waa Cavalieri banooniga oo qaybinaa wuxuuna xukumaa dhaca ciyaarta u socoto kale si u dhacayso hadaa gool leedahay ciyaartu macnaha xaajisa ka dhigay dadku waa daalinay adale gadaal ku celcelinay banooniga marmar ina gaadi daarabti banooniga waa boobsiinay hal mar
ayadoo la filinayna hal mar banooniga ku dhex tuuray marka hooshooda taas waa inay ciyaarta macnaha dhaceeda ciyaarta orod zaa'id maa la gelinaa ciyaarta ma la dilaa ma la tirtiibinaa banooni ma haysanayna waxaasay ku shaqo leeyihiin otaha markii laga hadlaayo okay diyeshaha aan isla aragno marka labada diyesha hadda tusaale ahaan usoo qaadanayna waxaa waaye Andres Iniesta iyo Luka Modric lamadaas diyesha toosna ma dheelaano laakiin tusaale ugu soo dhowaa diyeshaha camal kubad abuurayaal waa fanaaniin waa banooniga waxaa uu agdhigaa adi iyo borteeri waa ka shakinaa xataa waa yaabe waxaan see ku dhacda camal isdhee adaa bayaabaysid banooniga kugu dhacaa waa iska galaa adi hoolla shaqo dhan ma ku darsanaysaa tusaale kuwaasa ay ahayd hooshooda maxaa waaye ciyaartay kala maamulaya bis banooniga dadka inuu dhex bixiyaano karoosi keenaan inay noobayaasha banooniga u baasaan garbaha u fidiyaan badanaa horta Modric ciyaartiisa daa aragtiin half space ku socona garoonka horta markii la waxayna 5 qayb waa ma ogtihiin garoonka soo sawirayna 5 qayb waa dhinaca wide half space center half space kale iyo wide waa mugta dhinaca sare half dhinacaas oo ku socdaa marka dhinaca oo half space kaas badanaa u badiyaan markuu koro ama true toos u dhiiba ama garbaha u fidina ama wixii oo fudud Real Madrid counter attack leh waa mugta 2 baas gooshaada la jooga qaabkeeda taas waa ay counter attack laakiin Barcelona Iniesta asina saas wuu ahay laakiin boobsiiskaas oo Real Madrid ay ku boobsiyaan ma kuwaan banooni gaaban ee goosh ku imaanay waxa filna inay ilfahmoosin maxaa kaloo jiro hadda waa soo sheegnay maaha badana boosaskaas ugu caansan number 6 number 8 iyo diyesha maaha waxaa jiro mid la dhahayo register waxaan kii horta diyesha playmaker la analysis kubad abuure ciyaarto abuura fursado badan inuu abuuro oo halis badan inuu banooniga caawiyo ama uu dhaliyo xataa ama marmar oo noobayaasha oo buuxiyo weerarka oo ku beero diyeshaha hooshas kale waxaa kaloo jiro register boos la dhahayo register dadkii PlayStation 2 dheeli jiray register waxa xasuusan kartiin register ciyaartooyga warkiisa RG marka ku soo qormaysa register tusaale uu caansan waxa waaye Andrea Pirlo markuu waxa leeyahay Juventus markuu AC Milan oo joogay register ma Ancelotti yaa keenay wuxuu dhahay Ancelotti ninkaas diyesho ahay waxaa keenay waxaa ka dhigay say camal u dheelsiinaa diyesho waa say camal u dheelo marka heshiis maxaa waaye waxaa dhaha kubad abuure oo daahsan gadaal oo ka imaana mal raacanaay meeshas ma ogtaa xiriir badan malaha dhexdiis garoonkiisa jooga asoo garoonkiisa jooga ma aragtay oo banooniyaal ku tuura biir waa aragteen jafta ka baxays dhac kooxda laga adeegana asoo meeshiisa jooga orod iyo waxba soo galin jaftiisa aad u fiican hadda biir loo fadhiistay ciyaartooy qaabkaas u soo dhow hadda oo la fiiriyo oo la raadiyo Thiago Alcantara register dheeli kara hadda marmarna inuu dheelay ilaa Liverpool marmar ma arkino asoo gadaal jooga hal mar jaf ku dhaxada jaftaas leeyahay asoo dhaqaaq badan sameeynin oo khatar ka abuuri kara gadaal ka imaana dadku waa lagu qaldaa waxaa jira boos kale oo la dhahayo box to box labada dish oo u dhaxeena labada dish oo boos oo cayimo mana dhexdaas oo dheelaya ma taagnaanay laakiin waa wareega hadda tusaalaha ugu wanaagsan oo hadda Pogba ma dheelo magta Pogba booskaas u badan box to box alla maldaala baro ciyaartooygan dishootiisa iyo dishootaha kale dhexdooda dheela boos u go'an ma lahan hadda sanadkan box to box waxa dheelo ma taqaanay Antoine Griezmann ma aragteen ninkaas daacad waa ciyaartooy saas camal waa jeclaa aan horta adi naftaada dhan meesha ka saar koox loo dagaalamayo meeshan noowa ahaan jir iyo wax dhan mal rabo hada boos kasta taqaana inaad dheesho waa is hagartid mal rabo dadka inaad hagartid mal rabo kooxdaada inaad u dhimatid laga rabo Antoine Griezmann meel waxa xal banooni soo bixinaya Morocco ciyaartada fiirsanaysan weerar asalkiisa ahaaya labada garoon u dhaxay mana daaleen ciyaartooy orod badan waa ala raba oo almeeto badan in booskaas ka soo baxaan هذا شن بوس عمل واتاس ديشن واجرا
diyashaha waa sheegnay. Laakiin waxaa jirta arrin kale. Diyashayaashii rasmiga ahaa way sii dhimanayaan ayaantan. Diyasho rasmi ah koox dheesha ma lahan badanaa hadda. 4-3-3 lagu dheelaa, lama macnaha halaa taagan, lama tuuran. Diyashayaasha casriga ahaa awalka hore James Rodriguez iyo waxay u rafaadsan yihiin line-up badan u heleen iyo Mesut Ozil dhibka oo Arsenal uu ku helay oo kale. Ciyaarto macnaha macallimiinta ayaantan diyasho toos ima dheelaan. hadda waxaa kale James Rodriguez waa sheegay Coutinho kale hadda wuxuu ku dhiman yahay booskiisa wax dheela malaha. Barcelona xataa booskiisa ma dheelsiin jirin markuu imaado wuxuu ku fashilmay. Boosaskaas wax dheela malaha ayaantaa way dhumaya. Booskaadii ciyaartooyda waxay rabaan macallimiintu waxay rabaan nin banooni raacanayo. Diyashahana badanaa ma u badneen oo diyashayaasha horaan ka hadli waaya. Banooni ma soo deganayo ma soo raacanayo. Marka ciyaartaada inaa hormarisi lagaa rabaa. Diyasha casri ee hadda yaa waaye De Bruyne diyasho ahay inuu fursad helaynin inuu arki Chelsea ayaantoo joogay diyasho toosoo dheelaa diyashii waa iska bedelay oo ta camal oo soo noqday aaday gudahoo soo galaa oo soo deganaa oo soo raacanaa gadaaloon banooni ka soo abuura. Marka otayaasha diyashayaasha cusub waa sanadkii hore saas waa. Marka miisi tusaale ma galo meel walbo dheeli karaa ninkaas. Marka waana intaa difaac khadka dhexaa ka hadlaynay waxaan rajeynaa inaan wax un ka faa'iido aan professional ah ma ku dhahay laakiin waxaa jeclahay inaan shaxda iyo waxaas aan raadiyo maadaama PlayStation iyo waxaas ka dawo ordo bari wala. Marka dii aad wax ka faa'iiday laag noo saar YouTube ku cusubnahay. sanadkan dhamaadkiisa aday boqol la ina gaarnaa rabnaa 1000 idin dheer 100 kale bis. waa mahadsantihiin daawadayaal. Peace.